muddo ka badan 60 sano waxaa jiray hal su'aal oo si joogto ah la isku weydiinayay taa oo ah maxaa ku qarsoon dhulka Soomaaliya ma jiraan keed macdaneed oo wax ka bedeli kara mustaqbalka dhaqaalaha dalka mise wararka la sheegayo waa kuwa aan wali lagu xaqiijin cilmi baaris casri ah waa mowduuc soo jiitay indhaha dawladda shisheeye shirkadaha caalamiga ah iyo khubaro ku takhasusay cilmiga dhulka balse maxay sheegayaan xaqiiqooyinka la hayo maanta barnaamijkan waxaan ku eegaynaa taariikhda sahanada macdanta Soomaaliya xogta la hayo iyo meelaha wali su'aaluhu ka taagan yihiin ma tahay Soomaaliya dal ku fadhiya hanti macdaneed oo weyn mise sirta dhulkeeda ayaa wali sugaysa baaritaan dhab ah marka laga hadlayo macdanta Soomaaliya taariikhdu maanta kama bilaabanayso sahmintii ugu horeysay waxay dib ugu laabanaysaa dabayaaqadii kotonaadkii xilli ay khubaro shisheeye bilaabeen daraasado ku saabsan dhulka Soomaaliya markii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay sanadkii 1960kii waxaa sii xoogaystay dadaaladii lagu ogaanayay kheyraadka dabiiciga ah ee dalka intii u dhaxaysay sanadihii 70kii iyo 80kii waxaa la fuliyay sahano juqraafiyadeed oo ballaaran iyadoo la adeegsanayo farsamooyinkii ugu horumarsanaa xilligaas waxaa la isticmaalay sawirro lagu qaaday dayax gacmeedka kuwaas oo bixiyay xog ku saabsan qaabka iyo dhismaha dhulka Soomaaliyeed xogtan ayaa loo adeegsaday in lagu ogaado meelaha laga yaabo inay ku jiraan macdano iyo kheyraad dabiici ah sidoo kale waxaa la ururiyay muunado dhagaxeed waxaana la qoday goobo tijaabo ah natiijooyinkii la helay waxay muujiyeen in Soomaaliya leedahay calaamado muujinaya jiritaanka macdano kala duwan macdanta ugu badan ee si weyn loo xaqiijiyay waxaa ka mid ah gypsum waa macdan si weyn loogu isticmaalo warshadaha sibidhka iyo qalabka dhismaha warbixino rasmi ah ayaa tilmaamaya in keed badan oo gypsum ah laga diiwaangeliyay qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya waxaa sidoo kale jira limestone oo ah dhagax muhiim ah oo si weyn loogu isticmaalo soo saarista sibidhka iyo qalabka dhismaha khubaradu waxay aaminsan yihiin in keedka limestone ee Soomaaliya uu noqon karo saldhig muhiim u ah horumarinta warshadaha gudaha haddii maalgashi iyo kaabayaal ku filan la helo macdano kale sida kuba tin iyo gold ayaa iyaguna lagu arkay sahano hore kubarku waa macdan si fiican u gudbisa korontada iyo kuleelka waxaa si weyn loogu isticmaalaa fiilooyinka korontada qalabka elektarooniga iyo dhismaha macdanta kubarka ayaa maanta si gaar ah muhiim ugu ah dhaqaalaha caalamka laakiin waxaa jirta hal macdan oo hadalkeedu mar walba dood abuuro waana uranium sanadihii 70kii warbixino hore ayaa sheegay in raadad uranium laga helay qaybo ka mid ah Soomaaliya si kastaba ha ahaatee xaqiiqda maanta taagan ayaa ah in aan wali la xaqiijin keed ganacsi oo uranium ah oo laga soo saaro Soomaaliya khubarada cilmiga dhulka waxay ku adkeysanayaan in sahanadii hore ay ahaayeen kuwa hordhaca isla markaana loo baahan yahay baaritaano casri ah si loo xaqiijiyo cabirka iyo tayada keedka jira taas macnaheedu waa in la kala saaro xogta la xaqiijiyay iyo sheegashooyinka aan wali loo helin caddeyn dhammaystiran su'aasha xigta ayaa ah haddii calaamadahani jireen muddo dheer maxaa loo soo saari waayey sababta koowaad waxay ahayd burburkii dowladdii dhexe ee sanadii 1991kii dagaalkii sokeeye wuxuu hakiyey inta badan mashruucyadii sahminta iyo maalgashiga hay-adihii dowladda way burbureen shirkadihii shisheeyana intooda badan way ka baxeen dalka waxaa intaas dheer caqabadaha amniga kaabayaasha dhaqaalaha iyo sharciyada macdan soo saarku wuxuu u baahan yahay wadooyin koronto iyo dekado shaqaale khibrad u leh iyo weliba sharci cad oo damaanad qaadaya maalgashiga markii arrimahaas la waayo helitaanka maalgashi weyn way adkaanaysaa sanadihii u dambeeyey waxaa soo baxay dadaallo cusub oo lagu soo nooleynayo waaxda macdanta dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay dib u habeen ku wado sharciyada isla markaana dib loo ururinayo xogihii sahminadii hore hay'ado caalami ah ayaa sidoo kale taageeraya dadaalada lagu horumarinayo maamulka kheyraadka dabiiciga ah si kastaba ha ahaatee khubaradu waxay isku raacsan yihiin in sahano casri ah ay yihiin tallaabada ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo awoodda dhabta ah ee macdanta Soomaaliya haddii si hufan loo maareeyo macdantu waxay noqon kartaa il dhaqaale oo muhiim ah waxay abuuri kartaa shaqooyin cusub waxay kordhi kartaa dakhliga dowladda waxayna dhiirigelin kartaa dhismaha warshado iyo kaabayaal dhaqaale laakiin dhinaca kale taariikhda dunidu waxay muujisay in kheyraad badan uusan mar waliba horseedin horumar dalal badan ayaa la kulmay dagaallo iyo musuqmaasuq iyo weliba xasilooni darro inkastoo ay hodan ku ahaayeen macdanta sidaas darteed waxaa go'aaminaya natiijada ugu dambaysa ma ahan oo kaliya jiritaanka macdanta
balse waa sida loo maamulo. xogaha la hayo maantay waxay muujinayaan in Soomaaliya leedahay fursad macdaneed oo muhiim ah. Gypsum iyo limestone waa kuwa ugu cadcad ee la xaqiijiyey, halka macdanada kale sida gold, copper, tin iyo uranium ay weli u baahan yihiin sahna casri ah si loo xaqiijiyo baaxadooda iyo qiimahooda ganacsi. sidaas darteed mustaqbalka macdanta Soomaaliya wuxuu ku xirnaan doonaa cilmi baaris, maamul hufan, sharci adag iyo maalgashi waara. su'aasha weli taagan ayaa ah, macdanta Soomaaliya ma noqon doontaa furaha kobaca dhaqaalaha dalka mise waxay ahaan doontaa hanti qarsoon oo sugaysa in la xaqiijiyo?